ayaa loo qaybiyey lacag caawimaad ah lacagtaas oo loogu talagalay in loogu sameeyo shaqo abuur warkaasna waxay noo soo diray wariyaheena Abshir Mandela kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka soo aatay maamulka gobolka Bari kan degmada Baydhabo iyo gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Baydhabo ayaa waxaa lacag shaqo abuur lagu gudoonsiyay 40 qoys oo danyar ah oo laga soo xulay xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo lacagaha shaqada loogu abuuray dadkan masaakiinta ah ayaa waxaa yiri guddiga danwadaag waxaana sidoo kale kulankan soo qabanqaabiyay isla guddiga danwadaag ugu horeyn ayaa waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah mas'uuliyiinta guddiga danwadaag oo isagu faahfaahiyay ujeedada kulanka dad kulli ma wada madawal bisna kulan laakiin fursadda iyo weelbari mar insha Allah taala in ganacsiga macnaheedu ka bilaaban waan ka dadaalan macnaha yalla faraa insha Allah tababarna waxa si loo kobciyo tababarkii kulli walba oo faa'iideysadeen marka wali kulli macnaha faahfaahinta oo lacag dibadul ka waxaa sidoo kale mahad celin halkaasi ka soo jeediyay qaar ka mid ah dadkii iyagu la guddoonsiyay lacagaha shaqo abuurka ah waayid ee madamada dadka dhafan iyo wadaadka dhabaahna isha iyo afdalka barnaamijsi unda qoftaanay la bari wala qoftaanay la bari eedina ka mahad celiyaan ما تكون الأكيد على وصحان كانوا يمكن وضعهم بديك سوالهم شرط ليس والله هتم ما إلى المسيسية النار أيدون الذي تيجي والبلغ ودنكم وبتك والبلغ وتين الله قبضي السنة ذكر إلى اللي ما سيما لنا حضور والله سين شيء يحفظ الله سين كولي وإن فلان ما كستي الداري أنت إلا كدار والقبض سعيد كلمة لما الكيار نجيهم سينتي والبلغ وتين والله كتري سكوليال امشيريال آليال حتى بابور ما يعرف أمبلاسة يلا نقبض بقول هرينا نقبض نقبضي استنى نستين بدأ ولي تفورتين والبلغ والناسي حتى بكشكا إسلام أو كورما يروين استنى كستين وين بدأ كشكا يتن يالكين والكسيستن إمارة يتن نفتين يلا بدأ ويقول أنا أشتري وقول يا ما هذا غيره هذا ويبغى ما هذا كان إلهي يا قصد ما تبغي أدعو له دولات يا إلك ما هذا كان مجرد إلى يعني أحسن لك صوبي لك فايلي بالبا توبر ويبغى قارني هذا عندي كان هذا بقى نحوري حقولو سيبيب نقول لكن ما دوا أنباهنو أم أنقلني لأهاو وأنا أنباهني يوم جديك السعداري هو يحقول الحافظ بل لما أنباهني ولا هي متعتبر هاي توك يلا هولي ويعني قاعد يجيه شيء قلت إيه عنك ما يعني هي جدا ولاد شيء يكال ولبا تببر ولبا أو جامعات بينقراو يده هنباري يعني لغارها إيو قناعسي ugu dambeyntii ayaa gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Ahmed Bikole ayaa munaasabada oo isagu munaasabada soo gabagabeynayay ayaa la dardaarmay dadkii la siiyay lacagaha shaqo abuurka isagoona u sheegay in aysan meel xun kaga dhicin lacagaha la guddoonsiyay isla markaana ay ka soo baxaan sababtii loo siiyay lacagahan deeqda ah شرف النهاية برنامج كان شقيتي واسكدب الدين والشعب كان يقول الضبضة أكدد علي فكر ناس نبت سبحان الله شرفت العمودي سيدة ميلا رئيس هذا الوزاد يو تصفورت وشقي أيوه رئيد مغادي لجي ومرتيريان كان يترقى لي ولي وضعتي وهذا بينه الدين محال وين كجرت الدنوة الشعب كدقن وهذا بينه سبحان الله ما يحضر سبحان الله دقمين قبل عنه وذا عموي سبحان الله دولة كوفر قبل سوماليا ما حضر كسريتي ولد وزيري مدحوينه سبحان الله ولن باهي dadka kale loo إلا حصوصنا ولا ترى كل ترى أنا مهمة أميناين محاي إيدي إذا كفيلونا دي أنت نساس الشيء غسك إذا سينك مع دلنا ضدك كلا أو حتى
التفردي لكتاب إن برنامجكم ومشروعا يلونه القريب وإن كباية دلال ديري أيا اللي كباية سيدتك وهري بالشيغين وإن كفضي من ولا يراي الديري إن تعدل ويرسول بيان إلهي لك على ذلك إلهي تلسار ذلك وراشو يوم ما إلى رئيس الله خلاف لان إمرو لان ميلو قال ذلك إلهي بركة دراسة نوع عليه الصلاة والسلام فضاعي الدين hase yeeshee muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa guddiga danwadaag waxa uu waday howlo shaqo loogu abuurayo dadka masaakiinta ee ku dhaqan magaalada Baydhabo. Abshir Maxamed Nuur Mandela, Royal TV, Baydhabo.